السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada janalka Qaalin Media. halkaad nagala socotaan waa Qaalin Media. Walaalayaal, maanta waxaan jeclahay in aan idinla wadaago akhbaar ku saabsan dalka Turkiga, gaar ahaan madaxweynaheeda Erdogan. Madaxweyne Erdogan si lama filaan ah ama si kedis ah ayuu maanta warqabnimadii toole xilliga abaarihii afurka uu la kulmay arday jaamacadeed oo jooga guryahoodii halkii ay ka degnaayeen ee loogu talagalay, kuwaas oo iyagana markooda ka qaybgeliyey madaxweynaha afurka halka ay ku haysteen iyo miiska. Marka madaxweyne Erdogan booqashadan wuxuu soo booqday jaamacad la yiraahdo Mimar Sinan oo ku taala dhanka Aasiya ee Istanbul. Inta lagu guda jiray afurka, madaxweyne Erdogan waxa uu ka hadlay guulaha xukuumaddiisa gaartay, weliba gaar ahaan xisbigiisa loo yaqaano التنمية والعدالة ama xisbiga la yiraahdo kobcinta iyo cadaaladda, ama sidoo kale horumarka iyo cadaaladda waa la oran karaa. Dhanka marka wuxuu ka hadlay inay ka gaareen guulo fara badan dhanka waxbarashada ah laga bilaabo maalintii ay xukunka qabteen oo ahayd 2002. madaxweyne Erdogan wuxuu xusay in ay xilligaas ay dhismayaasha waxbarasho xilligay qabanayeen oo ahaa 190 dhismo oo dhismaha la dego ee ardada degto ayuu ka hadlayay 2012. maantana ay tahay 778 dhismo. Sidoo kale asagoo hadalkiisa wata wuxuu sii raaciyay dhismayaashaas wuxuu yiraahday qaadkooda xilliga hore waxay ahaayeen inta arday ay qaaday ee degi karaysa 182,000 oo arday ayaa degi karaysa dhismayaasha. Hatta xilligan lagu jirana ay degi karayaan dhismayaasha asagoo dayactir ku sameeyay iyo qaar uu kusoo kordhiyay 778,000 oo arday ah. Wuxuuna intaas ku daray madaxweyne Erdogan sara kala duwan aan Turki kaliya asalkooda ahayn. Kurdi baa ku nool, Carab baa ku nool, oo waxaa ku nool Yunaan baa ku nool, oo Arman baa ku nool, qoomiyado fara badan baa ku nool. Halka Turkiyadaas oo dhan calankaas oo mideeyay ay mid yihiin. Marka noola barbardhigo anaga, marka aan isbarbardhigno xaaladda aan ku sugannahay, weli anaga oo hal af leh, hal diin leh, hal jinsiyad leh oo Soomaali ah, aan isfahmi laanahay. sidoo kalena isna faquuqayna isla marka walaalahayga qaaliga ee Soomaaliyeed taas miyaan ku doonaynaa Soomaalinimo iyo inaan caalamka la jaan qaadno? waa ma dhici karaysaa? aad iyo aad ayay u adag tahay. sidaas awgeeda walaalayaal, waxaan idinkula dardaarmayaa dabeecadahan inaad wax aad ka bedeshaan idinka oo mahadsan. maantana waxaa lagu jiraa maalmihii barkeysnaa ee 10ka dambe ee Ramadaan. ha isku dayo mid walba oo anaga naga mid ah in uu u shaqeeyo Soomaalinimo, Islaamnimo, uuna ka tago waxa la yiraahdo qabiil iyo danaha gaarka ah. ma fahantay? ha lagu dadaalo. siyaasiyiinta iyo dadka danta kale dalkan oo damac oo kaga jira inay maamulaan cidda doonto ha noqoto, waxaan u sheegayaa iyagana inay ku daydaan madaxweyne Erdogan
maxaa yeelay nin aad iyo aad u wanaagsan weeyaan, diintana aad ayuu u difaacay, sidoo kalena dalkiisa meel ayuu ka soo saaray. Intaa kadib alla waxaan ka baryaynaa inuu 10kan dambe nagu daro kuwa naarta laga xoreeyo. Çok iyi değil. Sen voleybol biliyorsun. İyi maç. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Biz burada sizleri ağırladığımız gibi sayısal şu bayrakları da ağırlamak istiyoruz. Her zaman iftarda mı Her ağırlıyorsun? zaman yapalım. Güzel. İftarda mı ağırlıyorsun? Olur. Malzemede imanı silah, burada kaç öğrenci var? Burada 4.000 öğrenci var. Ben konuşmamı yaptım. Teknofest gençliği dedim. Teknofest gençliği dediler ki bir de biz Selçuk abimizi aramızda görmek isteriz. Bayrama kadar nasıl olsa vakit var. Ama bayrama kadar gelme sözünü verdi. Tamam. Hadi bakalım. Hepsinden 5 yıl zor. İnşallah testler yapıldıktan sonra Ne zaman? itibariyle oldu. Intii kulanti dambe waa Qaalin Media oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.